wasiirka gaashaaniga dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed Amar Dambe oo kamid ah mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee sanadkan ka qayb qaadanaysa gudashada rukunka xajka ee diiniga ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha Malka Cabdulaziz ee magaalada Jeddah. haddaba inkastoo uu safarka wasiirka gaashaaniga ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed Amar Dambe uu yahay safar cibaadada eebe ayaa haddana wasaaradda gaashaaniga ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ay u sameysay safarkaasi hab maamuus heer sare oo si dhab ah uga tarjumaya xiriirka iyo iskaashiga qotada dheer ee ka dhaxeeya labada wasaaradood ee gaashaaniga ee Soomaaliya iyo dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. haddaba markii diyaaradii uu la socday wasiirka gaashaaniga ee Soomaaliya ay soo xagan dhigatay garoonka diyaaradaha ee Malka Cabdulaziz ayaa waxa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka oo qaabta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cusmaan Aadan Dhuubow, konsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Jeddah mudane Ilyas Sheekh Cumar, mas'uuliyiin sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaaniga ee dalka Sacuudi Arabiya uu ugu horeeyo taliyaha qaybta mantiqa qarbiya ee dalka Sacuudi Arabiya Sareegaas Abdullah iyo madax kale. haddaba wasiirka gaashaaniga dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed Amar Dambe iyo mas'uuliyiintii soo dhaweysay oo wehelisa ayaa markaasi kadib u soo gudbay qolka marti sharafta ee VIP-da garoonka diyaaradaha ee Malka Cabdulaziz, halkaas oo uu wasiirka u gudbiyay Sareegaas Abdullah salaan uu madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha ay u soo direen boqorka dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dhaxal sugaha boqortinimada dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. iyadoo mudane Xasan Cali Maxamed Amar Dambe wasiirka gaashaaniga ee Soomaaliya uu ka codsaday Sareegaas Abdullah inuu salaan ka gaarsiiyo wasiirka gaashaaniga ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. haddaba wasiirka gaashaaniga ee Soomaaliya ayaa sheegay in iyadoo haatan lagu guda jiro mowsimka xajka iyo maalmaha fadliga badan uu ka codsaday dhammaan xujayda Soomaaliyeed ee haatan ku sugan goobaha barakeysan in ay ugu duceeyaan ummadda Soomaaliyeed in ay ku tallaabsadaan horumar iyo barwaaqo nabad joogto ah iyo in uu eeba ka qaado dhibaatooyinka. haddaba ugu dambeyntii waxa uu wasiirka gaashaaniga dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed Amar Dambe uu si weyn uga mahadceliyay dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ahmiyadda ballaaran ay siisay safarkiisa iyo soo dhaweyntii heerka sare ee uu kala kulmay intaba. Ali Jaamac Cilmi Cali Kuus, warbaahinta qaranka Soomaaliya, SNTV, Sacuudi Arabiya.